السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرو iyo mudanayaal kusoo dhawaada videogeena maanta videogeena waxaynu isku barbardhigi doonaa labada blockchain ee loogu jecel yahay blockchainka koobaad waxa weyn waa Sai blockchainka labaad ee isku barbardhigi doona waxa weyn waa Sui labadooduba waxa weyn waa layer 1 blockchain kuwaas oo ah kuwa degdeg badan welibana sidoo kale bixiya service aad u jaban hadaba soo dhow ayaan ku leeyahay qaxwahaaga hore soo qaado waxaan ku leeyahay kusoo dhow hantiyeela waa anigu iida jimca mubaarak ayaan ku leeyahay hawdana kusoo marnaya markii koowaad haddaynu eegno Sui waqti xaadirkan waxay taagan tahay $4.90 waxaana ku jirtaa kaalinta 13aad market capkiisu waxa weyn waa 14 bilyan volume ku dhex qulquli 24 saacadood ugu dambeeyay waxa weyn waa $1 bilyan maximum supply-na way leedahay Sui taasoo ah 10 bilyan waqti xaadirkan waxa soo ku jirta 3 bilyan oo ah percentage ahaan 30% aan taa ka gudubno oo inuu galno Sai iyaduna maxay sameynaysaa Sai waqti xaadirkan waxa ay taagan tahay $0.3 ay taagan tahay waxaan ku jirta kaalinta 78 market capkeedu waxa weyn waa 1 bilyan oo ka ah mid ka yar Sui oo kale 24 saacadood ugu dambeeyay waxa ku dhex qulqulsa 121 milyan Sai total supply-geedu waxa weyn waa 10 bilyan waqti xaadirkan waxa soo qurax jirta 4 bilyan oo ah 40% taasoo ah mid ka badan Sui hadaba Sai-ida laftirkeedu waxay bixisaa service aad u jaban iyo sidoo kale waa degdeg aadna waa loo jeceliyay in sidoo kale wax lagu dul dhisto hadaba labadooduba waxay leeyihiin meme coins sidoo kale taasoo mataqaana blockchain-keeda lagu trade garan karayo lagu maalgashan karayo saas darteedna waxay helayaan sidoo kale cashuuraad ay ka helayaan meme coinska blockchain-adooda ku dul dhisan iyo service walba oo ay bixiyaan ama product walba oo lagu dul dhiso sidoo kale labadooduba waxay faa'iido leeyihiin waxa aad u jecel DEX macnaha decentralized exchange ayaa aad u jecel in ay mataqaanaa isticmaalaan service-kooda maadaama ay yihiin kuwa aad u jaban oo aad u degdeg badan haddaba maadaama aynu aragnay maximum supply ay leeyihiin mataqaanaa midka kale uu ka yaryahay mid 40% midna 30% haddaba goormay soo bixi doonaan tokenska kale ee mataqaanaa aan weli ka hadda suuqa aan ku jirin haddaba haddaynu eegno marka koowaad Sui waxay soo bixi doonaan tokenska ugu soo horeeya 21 cisho ka bacdi taasoo u dhiganta mataqaanaa 2.13% oo ah lacag ahaan 306 milyan oo dollar haddaba haddaynu eegno sidoo kale waa 21 cisho ka bacdi ay soo bixi doonaan tokenskaasi haddaynu eegno Sai waxay soo bixi doonaan 5 cisho ka bacdi waxa soo bixi doona 1.3% ayaa soo bixi doona taasoo lacag ahaan u dhiganta 21 milyan waxaan arkaynaa inay ka yartahay laakiin waqtiga ay soo bixi doonaan Sai in ay mataqaanaa ka yartahay ama ay ka degdeg badan tahay haba ahaadaan qiimaha inay ka yaraadaan balse waxa aad muhiim in ogaano in tokenska mataqaanaa Sai ay degdeg badan yihiin horna u soo baxayaan haddaynu dib ugu noqono inay ahaayeen 40% inay suuq ku jiraan halka Sui ay suuq ku jiraan 30% oo keliya sidoo kale haddaynu eegno active address-yada ama adreesada isticmaalaya Sai blockchain-keeda waa imisa 8 bishii koobaad waxa isticmaalayay 357,000 oo mataqaanaa active address kuwaasoo isticmaalaya blockchain-keeda haddii ay service ahaan u isticmaalayaan iyo haddii ay mataqaanaa waxyaala kale u isticmaalayaanba ama ay kusoo biiriyaan dhanka kale haddaynu fiirino Sui waxa aynu arkanaa in mataqaanaa ay yihiin 371,000 oo mataqaanaa active address taasoo laba jibaarka ah halka Sai ay ka ahayd 300 Sui ayna tahay 791,000 oo active address waa laba jibaar haddaba waxaan halka ka arkanaa in active addresska ama isticmaalista labadan blockchain in ay aad ugu xoog badan tahay Sui maadaama aan idiin sheego labadooduba waa degdeg haddaba kaalmaha ay ku jiraan iyo waqti ahaan inta ay qaataan bal aynu isla eegno waqtiga ay qaadato si transaction uu dhaco haddaba blockchain-ka koobaad aynu eegi doono waxa weyn Ethereum blockchain-keedaas wuxuu qaataa 60 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo ayuu qaataa marka transaction uu dhaco halka Solana ay qaadato 1 ilaa 90 second halka Avalanche ay qaadato 0.7 ilaa 2.2 seconds Sui waxay qaadataa 1 ilaa 2 second ay qaataa halka Sai ay qaadato 0.3 ilaa 0.6 second halka waxaanu ka arkanaa inay tahay Sai number 1 fastest blockchain in crypto market marka halka waxa kaalinta koobaad ku haysta dhanka degdega iyo mataqaanaa inta ay qaadanayso si transaction u dhaco Sai blockchain dhanka cashuuraadkana haddaynu eegno dhanka cashuuraadka yaa ugu qaalisan yaase ugu jaban inta cashuur ay qaataan chain walba inagu tusaale ahaan usoo qaadana coinka la yidhaahdo Artemis
haddaynu eegno labada blockchain inuu ugu jecelnahay uguna fiican in la maalgashado oo ah Ethereum iyo BTC labada blockchain waxaanu arkaynaa inay yihiin labada ugu qaalisan haddaynu eegno blockchainada jira cryptocurrency waxaanu arkaynaa in mataqaanaa sui ay qaadanayso sanadle ama mataqaanaa haddaynu isticmaalno in aynu transaction ku sameyno coinka Artemis waxaanu arkaynaa inay qaadan doonto 0.0040 dollar inay qaadan doonto oo ah lacag aad u jaban marka la barbardhigo labada blockchain aad ku jecelnay ee ah BTC iyo Ethereum halka haddaynu si eegno sai inay qaadan doonto 0.0004 cent ay qaadan doonto waxaan arkaynaa in mataqaanaa sai ay tahay midda ugu jaban blockchainka isticmaalista haddii aynu isticmaalna transaction ahaan waxaanu arkaynaa inay tahay sai midda ugu jaban cashuur ahaanna ugu jaban in mataqaanaa in la isticmaalano ugu fiican haddaba aynu nimaadno price ahaan halka ay kala taagan yihiin sui waqti xaadirkan waxa ay taagan tahay $4.92 ay taagan tahay sanadkan gudaheed performance nooceeya ay haddaba samaysay ama qaab nooceeya ayay u dhaqaaqday sanadkan gudaheed waxay dhaqaaqday sui 5x ama 5 jeer ayay isla bajbaartay all time high goorma ayay gaadhay waxay gaadhay 1 January macnaha waaba 4 cisho ka hor ayay mataqaanaa samaysay all time high taasoo ahayd $5.35 waqti xaadirkan waxay noo sugu dhacsan tahay 9% oo keliya dhanka kalena haddii aynu eegno technical halka waxaanu ka fahminaa in sui ay dhaqaaq aad u xoogan ay samaysay all time high-na ay samaysatay mataqaanaa ay waqti xaadirkana taagan tahay meel aad u sarreysa dhanka kale haddaynu eegno sai maxay samaysaa ama performance noocee ay mataqaanaa samaysay haddaynu eegno sanadkii ugu dambeeyey waxa ay gashay -43% macnaheedu ay tahay wax profita may samayn ama wax sare u kaca may samayn goormay gaadhay all time high waxa ay gaadhay March 16 2024 taasoo all time high-geedu uu ahaa $1.01 waqti xaadirkan ay hoos uga dhacsantahay 66% waxaanu arkaynaa in potential uu jiro sare uu u kici karo maadaama aysan weli ka hadda all time high ugu dambeeyey aysan jebin sai haddaba labadan blockchain waa laba blockchain oo aad loo jecel yahay dadkuna ay aad u maalgashadaan service ahaanna aad loo isticmaalo adigu sidaad aragtaa labadan blockchain midkeed aad u doorbidaysaa inaad maalgashato ama midkee ayaad hore u maalgashatay hoos nagula wadaaga ayaan ku leeyahay waanigu iida caafimaad badan iyo cibaado suuban ayaan kaaga tegayaa